Asalaamu calaykum dhalinyaro soo dhawaada oo macalin Maxmuud casharkan waxaynu ku arkaynaa tobankan ereyo meesha noo saaran ereyga koowaad choreograph ama choreography waad meelo badan ku arki doontid waa in ciyaarta la isla helo yes ardayda sameyso qofka ciyaarka ama dhalinyarada dancing-ka sameyso qaab waxaa jirta ciyaaraha isugu helaan yes hal mar bay gacanta isla tuurayaan dhaxda isla tuurayaan lugta isla tuurayaan isla helidaas ciyaarta la isla helaayo ayaa la yiraahdaa choreography. Yes, ereyga labaad cliché waxa waaye phrase ama erey aad loo isticmaalo. Dadku way ka soo horbaxday heer ay dhibsadaan. Yes, it's an overused expression. Waxaa ka mid ah for example, time heals all wounds. Waa oraah dadka ay in aad isticmaaleen. Buugaagtaad ku arkaysaa, movie-yadaad ku arkaysaa, speeches-ka ayaad ku arkaysaa, TikTok baad ku arki. Phrase-ka noocaas marka waxaan leenahay time heals all way is a cliché. waa phrase aad loo isticmaalo. Yes. Ereyga saddexaad cockney waxaa la yiraahdaa dialect luqadda Ingiriiska dialect ay ku hadlaan dadka ka yimaado bariga London. Yes, East Londoners. Luqadda ku hadlaan ayaa la yiraahdaa ama dialectooda la yiraahdaa cockney accent. Yes. Ereyga afraad cocky waa qof isla weyn dadka hadalka ku celiyo attitude leh qofka noocaas ayaa la yiraahdaa cocky. For example, don't be cocky, stay focused. Yes, qof somebody who is arrogant, isla weyn kibir badan sanka taaga ayaa la yiraahdaa cocky ama dabeecadaha noocaas ayaa la yiraahdaa cocky behaviors. Ereyga shanaad compassionate waa naxariis. Yes, waxay isku macno yihiin sympathetic ama kind oo naxariis ah. For example, she is very compassionate towards the poor. Aad bay ugu naxariisataa dadka fuqarada ah. Yes. Condescending waa adjective waa inuu qofku u dhaqdo qaab ah inuu ka caqli badan yahay ama ka fiican yahay ama uu iskala weyn yahay dadka kale. Yes, condescending behavior waa dhaqan ah inuu qofku isku arko inuu dadka kale ka fiican yahay, ka caqli badan yahay, ka wanaagsan yahay iyo dhamaantood. Yes. For example, don't be condescending to your classmates. Ha isku arkin inaad ka muhiimsan tahay ama aad ka wanaagsan tahay ardaydaad isku kalaaska tihiin. Ereyga toddobaad confess waa qofka inuu aqbalo qaladka ka dhaca. Yes, to admit what you have done wrong. Qaladka ka dhacay inaad aqbashid ayaa la yiraahdaa confess. The thief finally confessed. Yes. Ereyga siddeedaad craftsman waa qof xirfadle ah oo gacantiisa wax ku sameyn karo. Yes, kuraastay sameeyaan waxay sameeyaan wooden doors and all those. Qofka craftsman marka waa qof xirfadle ah gacantiisa wax ku sameeyo. Yes, hal abuur leh. Ereyga sagaalaad dementia waa xaalad caafimaad. Xaaladda caafimaad ee qofkan markuu qabo wuxuu la kulmaa memory loss iyo confusion fara badan. Yes. Waxba ilowshiisa aad u tiro badanayo. Dadka qaar heer waxay gaaraan qofka markii guriga uu ka baxo ma soo laaban karo. Gurigiisa meesha ku yimaado ma yaqaan waaba iloobayba. Carruurtiisa magacyadooda waa iloobay. Daawadiisa wuu iloobayaa. musqusha meesha ku taal qofkaas marka wuxuu u baahanayaa constant care taxadar iyo in mar walba la daba socdo waana xaalad aad u murugo badan qofkaaga oo nool oo hadana dhintay way. Yes, dementia ayaa xaaladaas la yiraahdaa. Ereyga tobnaad ee u dambeeyo derelict waxaa la yiraahdaa qof la dayacay somebody who is neglected guri la'aan ah adigu faqiir dadkiisa ay naceen somebody who is abandoned neglected and all those. Yes, qof kaliya ma ahan xitaa guri iyo alaab la dayacay ayada laftigeeda derelict waa dhigi kartaa. Yes. For example, the house looked old and derelict. Guriga wuxuu u muuqday mid duqoobay lana dayacay. Yes, qofna wuu noqon karaa. It can be a person and it can be an item or a thing. Yes, ashka intaas ay ku eegyahay